بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناكسن داوداشا قيمها نجمضا. هالكن ومرقاتي تي في كسر دوادة برنامج كينا فلانقينتا تاريخه وتضبي 8 أكتوبر 2024 داوديال برنامج كان سيجارة وحين دوننا إن أينو أجو إجنو محا كجرا إن هجامي حماس يحيى سنوار وكل انتي دقين أي فلسطين إسرائيل waxaan idin hayaa warar isu soo taraya oo warbaahinta oo dhan la hadal hayo iyo Israa'iil oo siyaabo kala duwan uga hadlaysa arintan barnaamijka ayaynu ku falanqeynaynaa soo dhawaada daawada inagu soo biir muuqaalka sheergari aragtidaada qaybta hoose commentiga ku reeba mahadsanid haddaynu ku hormarno warkan markiisii ugu horeysay waxaa shaaciyay militariga Israa'iil iyo waliba hay'adaha sirdoonka gudaha Israa'iil waxaana ay sheegeen in ay baarayaan suuragalnimada duqeyn ay Israa'iil ka fulisay Rafah in lagu dilay hogaamiyaha sare ee Hamas Yahya Sinwar iyo sidoo kale laba xubnood oo kale oo ka tirsan Hamas sida ay ku warantay Al Jazeera wargeyska lagu magacaabo New York Times waxa uu ku waramay inay saraakiisha Israa'iil u sheegeen meedka qof looga shakisan yahay inuu yahay hogaamiyaha Hamas Yahya Sinwar in loo gudbiyay Israa'iil si loogu sameeyo baaritaan dhanka DNA-ga ah dhinaca kalena shabakada ku hadasha afka Israa'iil ee Kan ayaa ku waramaysa in ay u badan tahay weerarka ka dhacay koonfurta Gaza in lagu dilay Yahya Sinwar iyagoo sheegay in ciidanka Israa'iil ay ku sugnaayeen goob ku dhow halka uu weerarka ka dhacay oo ay kula kulmeen xubnaha Hamas managerin sirdoonka hore iyo sidoo kale howlgal sirdoon oo lagu ogaaday Yahya Sinwar in uu ku sugnaa dhismaha weerarka uu ka dhacay xilligan meedka qofka shabaha Sinwar oo goobta laga qaaday ayaa lagu wadaa baaritaan dhanka DNA-ga ah maadaama Israa'iil hayso DNA-ga saxda ah ee Sinwar oo laga qaaday muddadii uu ku xirnaa xabsiga Israa'iil sida warbaahinta lagu sheegay dhinaca kale sida laga soo xigtay telefishinka Israa'iil ee channelka 12 militariga Israa'iil ayaa ku wargeliyay golaha wasiirada iyo wadamada gobolka in la dilay hogaamiyaha Hamas Yahya Sinwar ma jirto ku dhawaaqis rasmi ah oo dhinaca Israa'iil ah sidoo kalena dhinaca Hamas ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay geesta kalena telefishinka Israa'iil ee channel 12 waxa uu sheegay dhammaan baaritaanada lagu sameeyay meedka goobta ay duqeynta ka dhacday ee koonfurta Gaza inay muujinayaan inuu yahay Yahya Sinwar warkan ayaa goordhow soo dhacay sidoo kalena wargeyska Israa'iil ee lagu magacaabo Yanet ayaa ku waramaya isagana hadda natiijada hordhaca ah ee DNA-ga inay muujinayso in la dilay Yahya Sinwar Hamas ilaa iyo hadda ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay oo ku saabsan xaqiijinta arintan aad ayaa loo hadal hayaa waxaana wararka qaar ay sheegayaan in loo badinayo in la dilay Yahya Sinwar hase ahaatee waxaa si rasmi ah loo sugayaa inay war ka soo saarto Hamas sidoo kalena waxaa la sugayaa in arintani ay ka hadlaan sidoo kale maamulka Netanyahu ama war rasmi ah ay ka soo saaraan hadda warbaahinta ayaa xogahan soo dusinaya oo sheegaya inay helayaan xogo gaar ah oo sheegaya in la dilay Yahya Sinwar waxaana sidoo kale warbaahinta ay tilmaamayaan in arintan ay u xaqiijinayaan qaar kamid ah xubnihii DNA-ga baaritaanka ku sameeyay laakiin wali waxa la leeyahay waxa la sugayaa natiijada kama dambaysta ah iyo waliba in la ogaado sida ay wax u jiraan iyo hadii ay sax tahay in hogaamiyihii Hamas Yahya Sinwar la dilay raadiyaha ciidamada Israa'iil hadda oo aan barnaamijka duubayo isna waxa uu ku dhawaaqay in hogaamiyaha Hamas Yahya Sinwar la dilay hadaba daawadayaal wixii ku soo kordha xogahan iyo wararkan isu soo taraya insha Allah waxaan idinku soo gudbin doonaa wararka iyo warbixinada dambe ee soo socda haddii Allah awood leh uu raali ka noqdo aragtidaada qaybta hoose ee commentiga ku reeba mahadsanid waxaan rabaa markana inaan bal hal iyo laba aan dul maro wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada iyo duqeymaha culus ee ka soconaya marinka Gaza iyo sidoo kale dhanka Lubnaan haddii aan ku hormaro wararkii ugu dambeeyay ee wariye ka tirsan Al Jazeera ayaa soo sheegay in 25 Falastiini ah ay ku dhinteen 10 kalena ay ku dhaawacmeen duqeymaha Israa'iil ka geysatay iskuul lagu magacaabo Abu Hussein waxaana halkaasi ku jiray dad barakacyaal ah iskuulka waxa uu ku yaalay xerada Jabaliya sidoo kalena agaasimaha caafimaadka Gaza ayaa sheegay in ciidamada gumaysiga Israa'iil ay go'doomiyeen isbitaalada marinka ayna ka hor tagayaan in halkaasi la gaarsiiyo gargaar dawooyin ilaa caafimaad ayaa Al Jazeera u xaqiijiyay sidoo kale in 52 Falastiini lagu dilay duqeymo ay Israa'iil hadda ka wado deegaano kala duwan oo ku yaala marinka Gaza duqeyntan xoogeeda waxa uu bilowday saaka waa berigii sidoo kalena wariyaasha ayaa soo sheegaya in tirada dadka ku dhintay duqeyn lagu garaacay ku yaala xerada Magaazi ee bartamaha marinka Gaza ay gaartay 9 ruux oo Falastiiniina
xisbullah waxay sheegayaan iyaguna inay gantaal la beegsadeen isu imaatin ay askar israa'iiliyiin ah ku lahaayeen albaabka hore deegaanka Misgaf Am, waxaana intaasi ay ku dareen in uu weerar gantaal ahaa oo ay la beegsadeen goobtan halkaas oo khasaaro culus uu ka dhashay. dhinaca kalena waxaa lasoo sheegayaa in 2 weerar oo Israa'iil la beegsatay masaajid ku yaala waqooyiga galbeed ee xerada Nusayrat ee bartamaha mariga Gaza waxyeelo ay kasoo gaartay dad shacab ah oo halkaasi ku sugnaa. geesta kalena Hamas ayaa bayaan iyaguna ay soo saareen oo ay kaga hadlayeen xaaladaha taagan ama wararka dagaalada waxa ay sheegeen in waqooyiga marinka Gaza lagu hayo xasuuq aad u ba'an, barakacin iyo waliba sidoo kale in dadka shacabka ah lagu qasbayo in ay dhintaan amaba in ay is dhiibaan. Israa'iil waxay ku sii adkeysanaysaa inay dagaalka sii wadi doonto, sidoo kalena guulo ay ka gaari doonaan iyaga oo 2 aag isku furay. haddii aan ku laabto arrinta ku saabsan Yahya Sinwar, haddii ay dhacdo sheegashada hadda warbaahinta Israa'iil ay ku sheegayaan in la dilay Yahya Sinwar, waxay ka sii darsiin doontaa xaaladda dagaal ee ka taagan bariga dhexe guud ahaan, gaar ahaan dhanka Lubnaan iyo waliba sidoo kale Gaza, iyada oo laga yaabo in iska caabintu ay sii xoojiyaan dagaaladooda iyaga oo sameyn doona aargudashooyin. laakiinse hadda waxaa socda xaqiijinta iyo baaritaanada lagu hayo waxa ka jira in uu dhintay hogaamiyaha Hamas Yahya Sinwar. warkaas oo markii uu soo baxay run ahaantii dad badan oo muslimiina aanay ku farxin, hase ahaatee warka dhab ahaantiisa waxaa la ogaan doonaa saacadaha soo aadan. kaliya hadda wararka la hayo oo warbaahinada Al Jazeera ay ugu horeyso oo xigashada hadda aan kasoo sameynayo ay tabinayaan kaliya waxa ay tahay in warbaahinada Israa'iil ay tabinayaan in hogaamiyaha la dilay, isla markaana la xaqiijiyay qaarkood ay yiraahdeen DNA-giisa, halka kuwa kalena ay yiraahdeen wili waxaa la wadaa baaritaan ku saabsan DNA-ga in uu isaga yahay in kale. laakiin tani dagaalada weji kale ayay u yeeli kartaa, xaaladda meel kale oo aan kasoo noqod lahayn ayay gaarsiin kartaa. Israa'iilna tani waxa ay ka dhigi kartaa yani inay sheegato waxa u eg guul oo ay yiraahdaan dagaalkii intaasi aan wadnay sanadka waxaan kusoo afjarnay hogaamiyaashii Hamas. laakiinse horey ayay u sheegeen hogaamiyaashan in iyagu inay joogaan iyo inay dhintaan aysan wax micno ah sameyneynin, oo hadafka iska caabinta iyo dagaalka uu yahay mid weligiisba soo jiray, isla markaana dabadoodna uu jiri doono, oo inta ay joogaan dhalinyarada Falastiiniyiinta ah ee xaqa u dagaalamaya ay sii dagaalami doonaan, inta ay gumeystaha hawshan ay ku jiraan dagaalka socon doono. yacni hadaf wax loo dagaalamay ay tahay hadaf aysan ahayn shakhsi, oo shakhsi markii uu dhinto meesha aysan ka bixinin. waxay yiraahdeen horteen meeqa ayaa la dilay, meeqa muhiimsan, yani shacabkan la dilayo wax ka muhiimsan ma jira ayay yiraahdeen. haddana waa u socdaa sanadka hadda wixii socday oo kale shacabka aad ayaa loo xasuuqa loo laayay, micnaheedana lama dhihin shacabka ayaa la laynaya hala joojiyo, waxaan faraha laga qaado ee hawsha way sii socotay. marka waxay yiraahdeen waa ay sii socon doontaa. marka hadaladoodii ayaa sii muuqanaya oo raad badan kusii reebi doona dadka dagaalamaya, oo ay dhiirigelin usii noqon doontaa, oo dagaalka waa uu sii socon doonaa. falanqayaashin waxay leeyihiin haddii ay dhacdo Sinwar in la dilo micnaheeda ma aha in uu soo dhammaaday dagaalkii Gaza, waxay ka dhigan tahay bilow cusub iyo weji cusub oo uu yeelanayo dagaalkaasi iyo xaaladda oo dhan kale isku rogi doonta. haddaba daawad maxay kula taariikhda qaybta hoose commentiga noogu reeb, muuqaalka share garay si dad badan u gaara. mahadsanid. barnaamijka xiga intaan ku kulmayna nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.